qof walba waxa uu qabto taakaba Allah ka dhigay taariikhda qorays waxaan leeyahay Sheekh Shariif waa ku townay annaga hadaan haweenka Soomaaliyeed haween waxaan arki jirnay albaabada loo furo haween waxaan arki jirnay talada la galiyo haween waxaan arki jirnay masiirka ummadda Soomaaliyeed waa hooyo dalka hooyo waxa loo yiri hooyo qiimaha ee leedahay loo nisbeeyay hooyo qiimaheedana waxaa noogu dambeysay Sheekh Shariif markuu dalka ka tagay marka waxa waaye waa agoonaan noqonay runtii gabdhaha Soomaaliyeed meelay wax ka qabtaan iyo meelay aadaan iyo meelay u socdaan midna ma lahan gabadhii meel madaxa gasho karto meel bay gashatay anigu xildhibaan galmudugaan ahay sababtan ku tagana Ilaahay ummadda qaar waa og yihiin xamaraan ku dhashan intaan kula ekaaday markaan dalkii wax ka qabta aan waa meelaan galay waxaan ku qasbanaaday deegaanka asal ahaan aan ka soo jeedo hadda wax ka qaban karnaan aado waxaan ku leeyahay Sheekh Axmed Sheekh Shariif waa ciili haya Sheekh Shariif soo dhawow beerka iyo wadnaha iyo kaliyaha aan kugu soo dhaweynaynaa jacayl sharaf iyo karaamo aan kugu soo dhaweynaynaa waxaan Ilaahay ka baryaynaa madaxweyne lagu liibaano oo dalka iyo dadka hanta oo darajada iyo sharaftii Soomaaliya ay leed soo celiya inuu Ilaahay qafuur xiina ka dhigo xamar markaa timi farxad hurdada hataa waa iga tagtay sayid soo dhawow adiga iyo marwadaada wixii la dhihi lahay gabdhaha Soomaaliyeed ay yiri laakiin waxaan ku sheegaa dad inaan oomanahay oon ku oomanahay ani qof ma kala qaadayo dawladnimo nin kasta jecel haday xuntahay hadaysan tahay laakiin taadu kuma jirto dawladnimada Soomaaliya waa ka fiican tahay ummadda Soomaaliyeed waa ku jecel yihiin haweenka Soomaaliyeed waa ku jecel yihiin annaga waxaan rabnaa inaan nabad ku seexano ma qixi karno marwooyin horaan nahay wadanka waligayna kama bixin rabnaa annagu hooyooyin baanu nahay Sheekh Shariif haweenkuna waa nabad ku nool ma ogolin Sheekh Shariif dalkayaga iyo dadkayaga inuu ku ciyaaro nin ilmihiisa dhoofsaday annaga caruurtayada dibadda taala wadankii baan joognaa meel walbaanu maraynaa waxaan rabnaa inay ilmahayagu xor wax noogu bartaan in ay nabad noogu joogaan in aan nabad ku shaqeysano in odagu markuu tago oo soo noqdo aan nabad iyo maaragtay raxmad aan helno ma rabna karaa siyaasadeed ma rabna foolxumo wadanka uu galo ma rabna gacmo shisheeye dalka waxaan rabnaa inay axsaab ka curato si siyaasadiisa loo furfuro siyaasad shaqaynaysa oo macna leh oo dadka Soomaaliyeed rabitaankooda iyo aragtidooda ku shaqaynaysa ay u timaado haddaan maalin walba ku laabano 4.5 waxaa imaanaysa sidii walaashay maxay ahaato Shamso iyo waxyaabo badan oo kala dhacaya ay dhacaan waxaan rabnaa in la keeno dalka axsaab ku tartamaysa program siyaasadeed iyo horumar oo arintaasuna ay hor istaagto waxa dhacaya oo dhibaatooyinka ummadda kala geynaya uma fiicna odayaasha dhaqanka uma fiicna waxgaradka uma fiicna haweenka uma fiicna dhalinyarada maxay la finnahay waxay ku dhamaanaysaa 10 qof oo aad waalid u tahay ama odaa u tahay ama nabadoon u tahay inaad mid xigsato aad ku xigsatid waxyaabo aan la garan karin wax fiicanna ma aha 30 sano in ku dhow oo dagaal sokeeya ah inkastoo dadaal badan oo socday 22 sano xukun military ah 8 sano aan dawlad barbarada oo dimuqraadi aan soo wadnay intaas dawladnimadu la eg tahay laakiin waxa Ilaahay mahadiisa dadkan Soomaaliyeed ay yihiin dad runtii taariikh fiican u leh inay ismaamulaan oo ay xaliyaan mashaakilkooda حتى marka ay reer baadiyaha ahaayeen oo aysan dawladnimo haysanin intay geedka hoos fadhiistaan oo garamaan yaa iyadoon xoog jirna gar la dhigi jiray neefka geelaha laga qalo ratiga oo la dhaanshaha laga qalo waxablaha lagu saaray wana la fuli jiray aqliga maanta in nagala waayo suuragal maaha waxaan hubaa mid ka badan aan ugu jira khibrad ka badan aan ugu jirta marka inaan dhinacaas u jeesano arinta labaad waxay tahay dawlad aan haweenku garbaha ku sidin dalkan kama istaagi karto warkaas waran iska leeyahay ma aha waa warruna waa arkayseen maanta marka warka la furay gabdhaha hadalka ka soo baxay dhinaca kale waxaan rabaa inaan idin sheego axsaab waxa loo sameeyay waxa waaye inay programkooda soo bandhigaan dawladana dhaliilaan maxay la dawladda hadda u sacbino
waxaa laga yaabaa meel hoga inaan igala dhacdo marka waxaan rabnaa inaan dhahno war xagga ha aadina xagga aad waa gartaan soo ma waa la saxaa dawladda inaan ka baqna ma aha dawladda in la saxo ma duminayno absolutely ma duminayno dhowritaanku marka ma aha kaliya qofkii dawladda dhaliila in la yiraahdo waa khaldan tahay dawladda in la yiraahdo waxaan waa ku khaldan tahay mucaaradka wuxuu ku khaldan yahay in la yiraahdo waxaan waa ku khaldan tahay cadaaladda sidaas nafareys iyo dawladnimada marka xisbiga himilo ma aha xisbi ka shaqeynaya dawladda in la carqaladeeyo waa xisbi ka shaqeynaya dawladda in la toosiyo waxaan rabnaa hadda in laga hadlo doorashada soo socota see u dhacaysaa moodalka ay doorashadu u dhacayso in la isu sheego aan la isboobin maxaa yeelay haddii la isboobo crisis ay maana ma celi kartaa adiga